duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soltalko oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay inay bilaabayaan habka casriyeynta magaalada. Waxa kale oo Maayir Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soltalko uu sheegay in qaabkii hore ee kaydinta dokumentiyada ay u bedeli doonaan qaab casri ah oo loo yaqaan e-government. Warin baa qolada hawshan gacanta ku haysa ay halkaasi ka hadashay. one time ama hal maalin kaliya September ama wiiga ugu horreeya ama wiiga labaad waqtigan isla garanno aynu ku dhamaystirno muxuu ahaa one time aan launch garayno systemka oo dhamaystiran degmooyinka oo dhan systemkan wuxuu meesha ka saarayaa duplicate oo dhan iyo wixii ama qofku bogaanay laba file scarab yaacay oo dhan oo cilada ugu weyn ee dadka haysata oo qofka marka aynu imika u dhamaystirno wuxuu qaadanayaa wax la ilaa mulkiyad dhul bannaan oo shahaadadii aynu ku tusnay deetan shahaada waxa ku qoran qofkii lahaa cabirkeedii waxa fayl labaad kama bixi kara marka tagadi inta qofka wixii noqonaysa inuu secure noqdo tagadiisii banaanay ismaha la mid ah saas iyo u sameyn doona tan waxa sheegaysa dakhli badan uu soo ururo systemkiina uu magaranaysa dadka u sahlo inuu si fudud qof wixiisa ku qaato dhulkiina uu magaranaysa murankiisa isla soo yaraado waa hawl runtii degolaha deegaanku ammaanteeda leeyihiin maayarka iyo tiimkiisa oo dhamaystiran ugu mahadnaqno. Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soltalko maayirka magaalada Hargeysa ayaa waxa uu tilmaamay ahmiyadda uu leeyahay mashruucan casriyeynta caasimaddu. Dhammaan shacbiga caasimadda waxaan ugu bishaaraynayaa systemkii ay muddada dheer sugayeen ee ahayd in magaalada la casriyeeyo lagana dhigo inay e-government dawladda hoose ugu horeegto in mashruuca pilotkiisii amba tijaabadiisii aanu ka bilownay degmada Ibraahim Koodbuur isagoo ka socon doona muddo 2 toddobaad iyadoo sidaa hadda layna tusayayba ay ka muuqatay sida faylkii u fududaanayo sida uu geometrikii dhulkii u soo eegayo si lahaanshihii dhulku uu cadaanayo iyo shaqadii oo muddo kooban ku dhamaanaysa. shacbiga caasimadda waxaan u sheegayaa guud ahaanba markay 2 toddobaad dhamaato waxa laga bilaabi doonaa magaaladoo dhan. waxaan shacbiga caasimadda u sheegayaa ciddii aan kala wareejisan faylkooga hore aanu kala wareejisan ee ku haysatay dhulka ciddii hore ay ka iibsatay inay dhamaystaan intaan mashruucaas magaalada saan uga wada bilaabmin iyadoo la sameyn doono in mulkiyadaha loo kala saari doono mulkiyadu qofka dhulka bannaan oo aanu ku dhisan karin iyo mulkiyadii aqalka dhisanna la kala bedeli doono. muddada ugu badan ee uu fayl ku dhamaan doonaana imika uu yahay 6 cisho ugu badnaan ilaa fulinteeda ilaa meel walba iyadoo aan waraaqii badnaan loo baahnayn systemkooda computerized yahay mulkiyadda u dambaysa iyo documented-koo hal marana meel looga wada daabacayo. waxaan leeyahay shacbiga inay u dhagan nuglaataan shaqada. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.